sheekooyinka wiilwaal ina barayaan inuu ahaa nin xeel iyo xirrid badan oo arrintii soo food saartaba furdaamin kara. waxaa la yidhi dumarkii uu qabay oo 4 ahaa ayaa qaarkood qaarkii kale ku masayrayoo dagaal af iyo gacan balihi dhex maray. waxay ku murmeen baa la yidhi, heblaay adiga waa lagu nacayoo garaadku kuma rabo, adigu waad iska joogtaa uune beri hore ayaa lagaa tashaday, aniga ayaa la iga kaa jecel yahay, gogashayda gogol kale weligiis ku doorsan maayo iyo hadallo kuwaas la mid ah. raggii u dhowaa qaarkood ayaa damcay inay dumarka garaadka heshiisiiyaan, isagii baase diiday. wuxuu ku adkaystay isaga mooye inaan xaajadaa cid kale loo agmanayn. afartoodii tu walba oo ka mid ah intuu gooni ula faqay ayuu ku yidhi, caawa fiidkii kolkay tahay meel hebla imow, aniga ayaa idinkala saaraya. markuu aaskii dumay oo ay goobtii ku soo wada urureen ayuu ku yidhi, afartiinuba sii jeesta oo isgarab joogsada, tii aan idin jeclahay dhabarka ayaan ka taabanayaa ay ha iska tagto iyada oo aan dib ii soo eegin. afartoodiiba dhabarka ayuu ka taabtay, dabadeedna sidaa la sheegay mid waliba iyada oo faraxsan ayay horteeda u dhaqaaqday. waxaase haray inaan isweydiinno, taasi ma sheeko dhab ah oo dhacdayba mase bulsho ragga oo qura qiimaysa waatay ahayde waa sheeko loo maleegay in garashada dumarka lagu liido. tan dambe u male. waxaa kaloo la sheegay waayihiisana laga garan karaa garaad wiilwaal inuu ahaa nin murtidhaari ah oo aan hadal seegin, nin jeclaa rag iyo dumarba inuu dadka xujeeyo si uu ugu daadego bal garashada qofku inta ay qodan tahay. ruuxa uu xujeynayaa haddii uu rag yahay asi uu si wanaagsan xujooyinkiisa kaga jawaabo dareen baa ka geli jiray. wuxuu u arki jiray halis ay tahay inuu iska horwareejiyo, markaas buu ku dadaali jiray isaga iyo ninkaasi inaanay carro bartira ku wada noolaan. haddiise ruuxaasi uu qof dumara yahay wuu guursan jiray, ama nin xigaaladiisa ka mid ah ayuu guursigeeda kula talin jiray, welibana u dhisi jiray. marka ay waliyayaashu doonayaan inay muujiyaan sidii uu wiilwaal u ahaa murtidhuux qof walba tiraabkiisa aad ugu fiirsada, waxay soo qaataan sheekooyin isaga loo saariyo oo tan soo socotaa ay ka mid tahay, kuna saabsan sidii uu ku guursaday qaar ka mid ah dumarkii uu qabay. waxaa la yidhi isaga oo xujo uga dan leh ayuu maalin maalmaha ka mida meel degmada dhexdeeda ah awr ku qala. dabadeedna wuxuu u yeeray degmadii uu u talin jiray raggii joogay qaarkood. markaas buu ku yidhi, ninkiin walba waxaan ka rabaa hilbaha ratigaas intuu isdul taago inuu iga keeno cadka xubnihiisa ka midka ah ee ragga israaciya. sidii uu nimbe ula soo boodayay xubin aan ahayn tii uu garaadku maskaxda ku hayay ayuu markii dambe oday ragga ku jiray hungurigii awrka u keenay. wiilwaal baa kolkaa la yaabay oo inta ka shakiyey duqiina hoos u eegay ku yidhi, war adigu ma aad garanne yaa kuu sheegay? hadduu yidhaahdo aniga ayaa gartay wuxuu malaha ka baqay inuu ku xujoobo oo uu dhegta dhiigga u daro. sidaas darteedna wuxuu ugu jawaabay, garaadow inan aan dhalay baa ii sheegtay. wiilwaal baa kolkaa gabadhii u bogay. wuxuu ku maleeyey inay caqli doora leedahay. kolkaas buu toyday bal inay guurgal tahay iyo in kale. waxaa loo sheegay inay guurgal tahay, hase yeeshee ay nin u doonan tahay, loona ballansan yahay in dayrta soo aadan loo dhiso. isla markiiba wuxuu guddoomiyey inay naag garaad noqoto. ninkii ay u doonanaydna 10 sac ayuu ku aamusiiyey, kaasoo isna isu qaatay inuu ayaan badan yahay. sidaas ayuu wiilwaal kula aqal galay gabadhii Tibira la odhan jiray. kii laga meershayna wuxuu naftiisa ku maaweeliyey labadan meedisoo gabayga ah. wuxuu yidhi, garaadkii hadduu Timiro helay waa ku taamahayey, aniguna haddaan 10 sac helay waa la ii taliyey. waa samray, waase samir taagwaa. maalin kale isaga oo awr ka baxsatay baadigoobkeeda ku jira oo raq iyo ruux toona wax u baytiya uu leeyahay ayuu goor ay barqadii tahay wuxuu ku soo baxay ari fara badanoo dhowaan ruuman uu 7 helay ku kala baahay. wuxuu abbaaray inantii la joogtay oo bartamaha ariga taagan, geedina samaysanaysa. faraskii uu ku joogay intuu soo ag joojiyey ayuu nabdaadiyey, dabadeedna ku yidhi, gabarey waxba awr baadi ah ma aragtay? waxay tidhi, indha kama qaadin, ha yeeshee balaan maleeye awrta mid dabali imu ku jiray. wuxuu yidhi, haa. markaas bay tidhi, mid illi isna ma ku jiray? wuxuu ku jawaabay, haa. markaas bay ku tidhi, haddaba raadkoodii uun baan arkay ee ruuxoodii ma arage, dhinacaas iyo qorraxdhaca bal ka baadi goob. sidii ay kula talisay ayuu yeelay. galabgaabkiina halkii ay farta ugu fiiqday ayuu ugu tegey, iyaga oo si wacan geedaha luqmaha ugula jira
hareerigii toomahana ka hamuun beelay karkii awrtu markuu ka dhacay ayaa wiilwaal hadalkii gabadhu ku soo duxay habeenkii meel uu ku bariyeyba barqadii uu la kulmay teedihan ayuu isla meeshii ugu yimid iyada oo aad moodo ariga iyo iyaduba ilaa shalay inaysan docna uga dhaqaaqin markii la isnibdaadiyey kadib ayuu weydiiyey gabadhey awrka dabadala sidee baad ku garatay markaas bay tiri awrtu kolka ay saaloonayso saynta ayay saalada ku kala firdhisaa kaaguse meel keliya ayuu tuuminayay oo sidaas baan ku gartay inay ka maqan tahay sayntii uu wax ku seeraarin lahaa wuu ku celiyey oo wuxuu haddana weydiiyey waa tahay midka ishara'na sidee baad ku garatay waxay tidhi geedkii uu ku soo hagaagaba dhinac kaliya ayuu ka daaqaayey ee sida awrta kale dhinaca kale uma gudbayn sidaas baana ku gartay inuu waa hore labada indhood mid beelay subaxdaas buu wiilwaal inantaana u qira inay tahay qof qorshe iyo quruud leh isla goobtiina wuxuu ku go'aamiyey carruurtiisa mooyee inaysan nin kale wiil iyo gabar midna u xambaarin sidaas ayuu ku guursaday dahabaduula oo gadaalkii noqotay dumarkii uu guursaday tii ugu caansanayd uguna magaca dheerayd si kastaba ha ahaatee haddii aynu doono inaan ogaano jawaabaha dadka siduu wiilwaal garashadooda ugu dhudhumin jiray ka maarmi kari mayno inaynu xusuusanno sheekadii iyo murtidii ka hadhay inankii uu abtiga u ahaa waxaa la yidhi inan ay walaashii dhashay markiisii horena uu isagu koriyey ayaa kolkii uu hana qaaday reer aabbihii u wareegay beri dambe ayaa wiilwaal waxaa loo soo tabiyey dadka uu u taliyey qaarkood inay inankii xanteen kuna sheegeen liita aan rag wax la qaybsan karin isagana aan ku bannaanayn hadalkii ayuu liqi kari waayey waxaa ka dhaadhici weyday ruux ay wuxuun isu galeen sida uu dhaliilba u yeelan karo dabadeedna inankii ayuu fariin u diray isaga oo raggii doonayna kula ballamay maalin hebla geedka shirka inay ku soo beegaan wuxuu doonayaa meel raggii xaman jiray ay ku dhan yihiin inuu inanka su'aalo ku weydiiyo isaga oo aad moodo inuu hubo marba haddii uu isagu abti u yahay inuusan ceebayn doonin maantii dambe kolkii uu shirkii isa soo taagay ayuu wiilwaal inankii kula booday oo 3 su'aalood mar qura isu daba dhigay wuxuu ku yidhi maandhow xoola maxaad ka timi maandhow xaraga maxaad ka timi maandhow xaasna maxaad ka timi inankiina isaga oo aan keyrkeyrin in badanna ku maqnaan ayuu ku jawaabay abti xoola waxaan ka imid geel aan tiro badnayn yarayna xaragana waxaan ka imid geenyadii xamara ahayd xaasna xayn ari ah ayaan ka imid waxay noqotay gargayrtii goobta fadhiday jawaab ay madaxa u wada ruxeen si gaar ahna garaadkii u farax gelisay kolka maxan dambaa jirta wiil iyo waayeelba shirka intii fadhiday soo wax yaqaan inuu yahay looma wada qirin soo isla goobtiina kama caddaan wiilwaal oo abtigiisa inuu ku bannaan yahayoo dhab ahaanna ay walaashii